in ayna wax duulimaada u soo dirin magaalada Buuhoodle oo ku saabsan diyaarad sida Jaad haddii cidi u soo dirtay wax duulimaadana iyadoo ay qaadi doonto ammaankeeda iyo wixii ku dhacaba مسؤوليته أمنك الديار داس يوحي سوق قاعد كحمالة وحقادي دون تعدي صادرته. وحنا هاي جل حسيت دبوه هذا كله تي كبر بارتي شغله كبلودي تذكي جرون كأساسين وان هاي درت كشري درت وحنا كشري إنه ينعفيه ما قرأت نعفيه وصاحري نيجي درت كشري ولا يقف بالله حرمش واحد سند واحد عقلي يجلي كريه ما وحنا وش جينا ددوينها waxaa siinayna wax aqliga gali kareen anigoo kii geedka ka jaray baneeyay dhirta ka guray xoogiisi galiyay in la dhaho qof baa loo xiray Nairobi jooga oo hantidiina Nairobi lagu xayiray mar koowaad iyo mar labaad iyo markii saddexaad waxa arrinka ka hadlayeen ma jiraan oo ka qabtay waxaanu leenahay diyaaradda qaadka keentay iyo shirkadda qaadkaba garoonka maanta laga bilaabo taariikhdu tahay 16 bishii 12 in ayna dib ugu soo noqon ilaa iyo sifahay ku digayso la saxo oo ganacsatada ka midka qaadka magaalada Buuhoodle oo dadkii u dhashay deegaanka ahay arinta ay nagu samaysay naagta foosiye leeyahay hawa fayf leeyahay shatiga u goosatay ka Nairobi shatiga u goosatay horta kay u goosatay kan ma aha Buuhoodle waxaan u sheegaynaa hadday sidii wanaagga iyo ganacsigu ku jiray ay diiday inaysan teeduna degayn baan u sheegaynaa iyadii wixii la shaqeeya toona aysan ka degayn diyaaraddaasi baan anaguna ka ballan qaadnay hadday taa ballan qaaday hadday hadalkayaga iyo baaqayaga waxba ku qaadan weydana dee qofaan sharci shantaadu ka reebay sharci kaama reebay baa waa isugu imanayna airportka warqadii airportka waa noo saxan yihiin wuxuu u xiran yahay islaan la yaaho hawa 5 oo ka xidhatay Nairobi annaga wax looga yimaado diyaarad baa jirta diyaaraddaas waxaan u sheegaynaa cidda mas'uulka ka iyo cidda ay ka timaado inayna dib cagaha u soo dhiganeen airportka Buuhoodle maanta oo laga bilaabo 26 bisha 12 barritooyna soo farsan karin ma suurtagelayso ma dhacayso dadkii muwaadiniintii reer Buuhoodle ee deegaanka iyo garoonkan xaq ku lahaa inay ka qatanaadaan oo ka qaad la'aadaan oo ka diyaarad la'aadaan inaad adigu ku ganacsato ma dhacayso waa saxabka timaasho sina loo arki maayo way suurtagelin ha sugin xaaway taa xaawan leh midna waxaan leeyahay halkan aan fariin uga diraya maamulka shirkadaha diyaaradaha ee qaadka waxaan u sheegayaa garoonkaas dad qabaa'il leh ma suurtagelayso hashii ninku labada nin wada lahaayeen ninna inuu maalo ninna uu waxa weeyaan ka qatanaado waxaan u sheegayaa laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bisha 12 inaysan diyaarada ay leeyihiin aysan iska soo dirin gobolka Buuhoodle iyo airportka haddii ay u soo diraan waxa ku dhaca iyaga damaanad qaadi doona anagu wax mas'uul kama nihin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh.